dood adag oo aan waxba la isku reeban ayaa ka dhacay fagaaraha qaramada midoobay ee caawa. Soomaaliyana waxay la soo baxday awood xad dhaaf ah iyo luuqad adag oo diblomaasiyadeed oo ay adag tahay mid ka mid ah danjirayaasha Afrika in sidan oo kale qaramada midoobay uga doodo. Safiirka nidaamka Israel ee dhawaan aqoonsaday Somaliland ayaa mikrofoonka la siiyay waxana uu soo bandhigay dood marka la eego golo noocaas oo kale in lala tagay aad u jilicsanay. doodiisa inta badan waxay dul wareegaysay in nidaamkiisa aanu ka shalaayi doonin tallaabada ay ku dhaqaaqeen ee aqoonsiga Somaliland. waxa uu si hoose oo aad u sii ridan uu faraha la galay xaaladda siyaasadeed ee waddankan ku yaala geeska Afrika ka jirta. isbedeladii waaweynaa ee dhacay ee xagga nabadgelyo darrada ahaa iyo dagaaladii la soo maray. si gaar ah waxa uu tilmaamay in la dhibaateeyay oo xasuuq loo geystay shacabka qaar ka mid ah Somaliland ku nool. sidaas darteed waxa uu yiri ma jirto sabab ay Somaliland meel ugu sii xirnaan karto Soomaaliya. inta markay dhacdo kadib oo dooda in muddo la warwareejinaya ayaa loo dhiibay mikrofoonka Abuukar Baallo oo ah danjiraha Soomaaliya ku matalaya qaramada midoobay. markaas ayaa la maqlay shanqarta ereyo waaweyn oo dhagaha diblomaasiyiinta halkaasi fadhisay ku dhacayay. Abuukar Baalle ayaa markii uu mikrofoonka qabsaday waxa uu ku bilaabay anigu ma garanayo waxa aad ka sheekaynayso. waxaan u malaynayaa inaadan aqoon waxa ay Soomaaliya ahayd waxa ay hadda tahay waxay u taagan tahay. inta badan waxaad nooga sheekaysa ka hadalka arrimaha bani'aadanimada iyo qiyamka nolosha bani'aadamka. waliba adiga oo dalkaagu uu dilay in ka badan 70,000 oo qof oo haween iyo carruur ku jiraan. inta waxa dhaafsiisan buu yiri 100,000 oo ruux ka badan ayaa isbitaalada ku yaala oo bukaan ah. haddana waxaad nooga sheekaynaysaa inaad ka tilmaanto ama aad sheegto in Soomaaliya ay dhibaatooyin u dhigma xasuuqay ka dhaceen. taasi waa caay ayuu yiri Abuukar Baalle. waxa uu sidoo kale sheegay markii uu ka jawaabayay arrimaha gudaha iyo waliba Soomaalida sida ay tahay. waxa uu yiri waxaan nahay hal dad, hal diin leh, hal calan leh, hal ujeeddo leh, hal aragti leh, isla markaana dhinac kasta ka midaysan. haddii saan u imaado buu yiri Somaliland dhulka gobolada waqooyi 45 ka mid ah dowladda Soomaaliya ee federaalka ayaa gacanta ku haysa. gobolka Awdal ee xuduudda Djibouti raacsanna ama ku yaalana Somaliland iyo aragtideeda lagama aqoonsana. sidaa daraadeed adiga ayaa nooga sheekaynaya Soomaaliya oo aan waxba ka aqoon. ma ka dhicin buu yiri wadankayga waxa suuqa laakiin waxa ka dhacay dagaal sukeeya oo waliba gacmo shisheeye ay qayb ka ahaayeen. halkaasi marka uu marsiinayo Abuukar Baalle hadalkiisa ayaa warbaahinta gaar ahaan kaamirooyinka qaramada midoobay waxa la arkayay wajiga safiirka Israa'iil oo isbedbedelay iyo waliba jawaabo jilicsan iyo dood nugul inuu meesha la yimid. taasoo ka dhigan fagaarayaasha diblomaasiyadda adduunka haddii Soomaaliya ay u dirto dad micno leh inay matali karaan dad aqoonta meel fiican ka gaaray oo waliba waxtarkooda durbaba aad loo arkayo. hadalhayn ballaaran ayaa hadda ka taagan baraha bulshada haddii ay noqon lahayd X iyo meelaha kale ee aragtiyada lagu wadaago. taas oo la leeyahay durbaba Israa'iil waxay qaadatay fadeexad diblomaasiyadeed oo ka soo gaartay caalamka. haddii aan eego wadamada sida gaarka indhaha loogu hayay oo doodooda la sugaya waxaa ka mid ah Mareykanka. waxay tilmaameen in siyaasadoodii Somaliland iyo Soomaaliyaba ku aadanayd aanay waxba iska bedelin. saate Israa'iil waxeeda iyaga ay gaar u yihiin waxna ma cabaarayn waxna ma ogolaan. marka laba wajiilayn ayaa ka muuqanaysa halkaasi. dowladda federaalka ee Ruushka ayaa ka mid ahayd dadka caawa hadalkooda la sugayay laakiin waxay yiraahdeen tallaabooyinka Israa'iil ay ku dhaqaaqeen lama aqbalayo. dowladda Turkiga oo ka mid ahayd wadamada hadallada togan ee aadka u miisaanka cuslaa jeediyana waxay yiraahdeen Israa'iil waxay samaysay waa arrin qatarteeda leh oo badda cas iyo saameynteeda qaban kara isla markaana bedeli kara nabadgelyada gobolka ka jirta waa geeska Afrika
waxaana intaa ku dareen in Soomaaliya uu kala dhaxeeyo heshiis amni oo istiraatiiji ah halkaasna ay ka dhigan tahay in cid kasta ay waxay samayso aanay aqbali karin hadalkaas oo marka luqadda diblomaasiyadda lagu fasiro uu Turkigu sheegay in uu diyaar u yahay difaaca Soomaaliya dowlado fara badan ayaa ka hadlay ururo ay ka mid yihiin jaamacadda Carabta waxaana ay tilmaameen dhammaantood si isku mid ah inay uga soo horjeedaan waxa Israa'iil ay ku dhaqaaqday Faransiisku Soomaaliya ayuu garab istaagay marka waxaa muuqanaya dooda diblomaasiyadeed ee caawa golaha ammaanka ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ka soconaya durbaba Soomaaliya inay xaqiijinayso guulo diblomaasiyadeed oo waaweyn waliba taas oo ka dhigan in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Danjira Abuukar Baalle oo caawa ku sifoobay haliyay qaran oo weyn in ay shaqo aad muhiim ah u qabteen taas oo guud ahaanba Soomaalida ka dhigan fagaara muhiim ah in lagu matalay oo qarannimadooda wada jirka daleed iyo madax banaanida jamhuuriyadda si weyn loo xaqiijinayo soo dhawaada ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar